imisaan arkaa dhalinyaro xooggan markii xooggii hooyadood ay qaateen markay qaateen anfacaadii iyo ay qaateen hooyadood wax walba ay ka qaateen oo la soo koriyey iskeentaa raaxadeedii oo dhan ay u hurtay ay ku daashay ayaa markay xoogaysteen oo la rabay inay hooyadii xambaaraan hooyadii u qabeeyaan hooyadii madaxa u salaaxaan hooyadii u riixriixaan u adeegaan khaadim u noqdaan ayay leeyihiin uf ay gacmaha ku sayraayaan ayay hooyooyinkood guulguulayaan hadal hooyadii ma dhihi karto way baqaysaa gabadheeday ka baqaysaa wiilkeeday ka baqaysaa hooyada haddii hadal ay dhahdo inuu ilkaha ka daadiya ka baqaysaa imisaanu aragnay haddana wuu tukanayaa ilaahay buu allaahu akbar u leeyahay waa xaqii koowaad xaqii labaadna waa kan way baqaysaa hooyadii wiilkeeda lama hadli karto xumaanka ma celin karto wanaagga uguma yeeri kardho falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa ha gulgulin hooyadaa waa laba shay oo laynaga fogeeyey waqul lahumaa qawlan kariimaa qowl wanaagsan hooyada way mudan tahay way leedahay xaqa wallaahi way leedahay hooyada hadal wanaagsan dheh dadkii kale ee aanan muslimiinta un islaamnimadun idin dhexaysay bal insaannimadun idin dhexaysaa waxaa la leeyahay waquuluu linnaasi xusnaa dadka kale waa gaaladii iyo muslimkii hadal wanaagsan ku dhaha maxaa waay kelimada wanaagsan waa sadaqa miisaanka maalinka qiyaamay kuu fuulaysaa laakiin hooyadii oo kaaga dhow xaqa labaad ah ayaa lagu leeyahay waqul lahumaa qawlan kariima hadal wanaagsan oo qalbigeeda farxad geliya ku dhan in badan bay hooyada qalbigeeda murugay oo ay murugootay oo ay walwashay oo ay ooysay oo ay ceelkaambisay siday rag kaaga dhigi lahayd siday kuu korin lahayd khayrkaad uga fiicnaan lahayd siday wax kuu bari lahayd siday tarbiyadaada iyo akhlaaqdaada u wanaajin lahayd hooyo wax loo dhigo wallaahi inaanay lahayn waxa la ooyayo hadalka aan sheegayo ma aha laakiin waxaan sawiranayaa oo aan arkayaa hor fadhiya hooyooyin badan oo da' 70 80 xanuunsan oo jooga qaxootiyadii oo jooga meel runtii nabad aanay ka jirin madfuucu dhacayo meel aan hooyadii aanay heli karin wax u adeega aanay heli karin wax dabka xataa u shida aanay heli karin wax biyo u keena bal hooyada aanay heli karin biyo nadiif oo ay cabto dhoobada ay cabbaysaa meelay harsata aanay heli karin cirkaasaa u saqaf ah oo guri ah dhulkaasaa u sariir ah dhul ayay jiiftaa waxaan arkaa hooyo miskiin ah oo gurguuranaysa in ay dabshidato in ay soo qaadato weel yar in ay soo qaadato jikada ay gasho aawo ciyaalkeedii 5 ama 10 ayay dhashay aawo xaggay ka baxeen orobay joogaan oo raaxaysanayaan gabdhay u adeegayaan reero kale u shaqaynayaan miskiintii dhashayna waa taas halkaasay fadhida wabilwaalidayni ixsaana gaari qurux badan oo 1 milyan la gadaayo ku socdaa hooyadiina guriga wuu dhisi laayahay dhar buu ku xiri laayahay way arraban tahay hooyadii way qaawan tahay markaad fiirisid sawirkeeda waxaad moodaa waagii dhagxaanta inay joogtaad moodaa waagii cawska iyo qashinka la saaran jiray cawrada lagu asturi jiray inay joogtaad moodaa hooyadii iyadiina gabadhu waxay xiran tahay dhar xariir ah dahabkeeda meelay dhigta la'dahay ilmaheeda waa kuwaana oo siday u burbuuran yihiin u qurux badan yihiin waad yaabaysaa hooyadeedna waa taa miskiin halkaasay ku ooyaysaa آخرة عذاب بعدين به والله عذاب بعدين به عندنا ميل لقينا لا يحتى لا جوينك بوح والله واحد به والدكي أنا والدكي هل كان أنا كارين ورشينا كدبينا هل كان وكاجي سياهي
والله زقوم بانو دنبه زقوم كي أكشي كينا يا إنو دنبه إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وحا إنو دنبه رسولك الأولى صلى الله عليه وسلم هدي لبعك من الزقوم كأدو كل وسور ذي لها ولبع هدي الوسور ذي لها عالم كأردن دك كنا نشهدوا الله بالخير وقبل لها وقابل لها ويدم الله يديد الكود وهل نبيع هدي أدون كل وسور ذي لها كورن بوليه هاي كاللوغة دقا عنديسة قادة يقرع ذي عشرة نك عناية بل كورن بوليه هاي بانكا يساقا والدك أينو